بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مدنتا سكوت مدهالكن ككوبان حسبوينها كلمية عاوة وأي تاريخ تهاي تطودي بشة شنات وحينو بلا ما يشروينه شنات حسبك وككليميد لامها وككوبي هاي laanta UK wadankan UK waxaan marka ugu horeysa sidii caadadii noo haydeen ku bilaabanaa waan iska soo koobaya hadalada ayadaha Quraanka Kariimka waxay noo akhriyo doonaa oo kelmadiisana raacsan doonaa ugaas Cali Nuur fadal bismillahir rahmanir rahim a'uudu billahi minash shaytaanir rajiim ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون صدق الله العلي العظيم وبلغ رسول النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آيات كاسوح الموشية إننا إلهي سبحانه وتعالى أين إلاوين هدين إلهي إلونه isaguna waa ina ilaabi doonaa ilaahay subxaanahu wa tacaala waxba ma ilaabo laakiin haddii aad ifduwada aad ku ilowdid intaad ifka joogtid aakhirona dee waad hoogtay marka waxaynu yeelaynaa jaamacad baynu ku jiraa waxaynu nahay adduunyada fidno waxaynu taagannahay adduunyo fidno haddii ay buxuunkeedii leeyahay hawl badan leh jaamacad baynu ku jiraa inaynu ka gudubno oo rasmigii baynu u gudbaynaa marka inaynu sahay qaadano qof waliba labada mitir uu geli doono waxa uu la geli doono waa camalkiisa iyo wixii uu shaqaysto ilaahay dartii marka waa inaynu ilaahay ka cabsano rabbiga waa inaynu u noqono mar walba waa inaynu xusuusnaano ilaahay waa inaynu mahad noqono ilaahay wayna macsuumay adduunyada intuu wax walba dhigay xataa ciisamada iyo arlada iyo ma beerahuma intuu googlay ayuu inagu macsuumay sida aynu macsuumanahay maanta ee halka u joogno qof walba dharka wacan soo qaatay ayaynu ilaahay inuu macsuumay marka ilaahay inaynu ku kufrino oo aynu ilowno oo aynu hadii ay bixuunka adduunyada iriyano waa dhibaato alle aanu noqono taa intaasaan kaga baxaya waa wacdigii iyo aayadii quraanka ahayd waxa mar labaad iyo mar saddexaad baan ومعاد علينا جود هان حسب وينها كلمية وسقي مد مجالين ككلدوان UK هل كم حنا فرديا جود دي مستبيعتك أو chairman كي نو فرديو إبراهيم عرب جامع وحن ميكروفون كجود بدونا إبراهيم عرب جامع أو جودوميها chairka جود دي مستبيعتك كلمة دي سي يو وحي دردارين جود حسبك جودهان iyo gaar ahaanba wuxuu nooranayo waan ku soo dhaweynaa Ibrahim اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين دمانتين خير كلمية رجية هوين مدحية من شو أدبر دي السلامية سلامة إسلام كان عندكم السلامية أدبر إذا ما لقيا رو إبراهيم عرب جامع قدومي قدوم مستبيعتك أكشيب كان سؤال أكشيبشين اعتباطي أنا كسوق قيب كشين شركي حسبك شنات كونغرسك كاكي كوري قدومي أنك هاي سجل فتيسي إلى هبا ما هدله وعبري قارسيه كنا wuxuu ahaa bishii saddexaad shanteedii 2016 iyo Bristol gudidii aanu markaa dooranay ee fulin ahayd iyo mustabeedba tan maanta halkan aynu kaga dhawaaqino ayaa ku xigtay xusbigu haddaan taariikhda xisbiga dib ugu yara noqdo oo loo baahan yahay laga maarmayn xisbigu waxa weeye xisbi aad u soo dadaalay waxa weeye laantii ugu horeysay ta UK
qurba jooga halgan iyo maalinkan maanta waxay soo gashay iyo howlqabad aad iyo aad u laxaad leh oo ah muddo imika ku siman dhowr iyo 10 sano ama 20 ku dhow maalintii mucaaradka aynu nahayn haddii lagu daro intaana reer UK waxa la hadheen ma jirin intaaba waa dadaalayeen maal muruq maskax aqoon intaba way kaga qayb galeen halgamadii istaba joog ahaa ee xisbigu soo maray waxaynu ku guulaysanay in xisbigu muddo dhowr iyo 10 sano dalka Somaliland hogaaminayay walba madaxweynihii labaad kii hore oo ahaa Axmed Maxamed Maxamuud Siilaayo kii labaadna oo ahaa Muuse Biixi Cabdi waxaan ilaahay ka baryayaa oo ka rajaynayaa waanu ku ballan qaadanaa in ka saddexaadna aynu ku guulaysano waxaad moodaa markii aynu madaxweyne labaad saaray Muuse Biixi oo madaxweynaha maanta in aynu nasanay oo aad u nasanay oo aad u baashaalay oo maalinkan maanta aynu si hawsha u dhamaatay oo barkimada dheeraysanay waan ku jiro aniguna dadka barkimada dheeraystay guddiga fulinta oo ahayd maamulkii guud ee dhabta ahaa ee maalinkan maanta xisbiga iyaduna lafteedu ay barkimada dheeraysatay khilaafaan la yimi ilaa muddo imika laguna dhawaaqay urura lagu dhawaaqay oo urura xisbiga imika uu ku noqonayo urur uu kaga qayb gali doono sida ay qorshu yahay haddaan wax isbedelin doorashada soo socota waxa weeye markaa waxaa loo baahday oo laga maarmaan noqotay inaan xisbigii kicino boor ka tulno kaalintiisii lagu yaqiinay aynu ku soo celinno oo aynu tartan galno oo wacyigelin galno oo halgan galno waxaa odhaahii ahaan jirtay markii xisbigu bilaabmay rag badan oo kaadirkiiya oo asaasayaashiiba halkan fadhiya waar gacanta iyo jeebkaan is ogolaysiino ayaan odhan jiro aan haysu lahaa haddaynu doonayno inaynu guulaysano iminkana waxa weeye tii halkeediiba ka bilaabaysaaba ila tahay haddaynu doonayno wax iska celinno haddaynu doonayno xisbiga inaynu mar saddexaad xukunka gacanta ku dhigno waan ogahay taageero badan buu leeyahay ku leeyahay UK rag badan oo kaadirkiiya baa jira rag badan oo maalinka maanta sooyaalkii soo halgamay baa ku jira dhalinyaro badan baa soo kacday dhalinyarada hala soo dhaweeyo dhalinyarada hawsha hala geliyo abaabulka hala geliyo hala kiciyo inteeni hore weeyna fadhiin hallo dhiig cusub ha lagu talaala xisbiga taasoo iga talo waxaan markaa imika ku soo gabagabeynayaa haddaan loo guddida mustambeedka waxaan u xil saarannahay oo rimidkayga hawlahayaga ka mid ah oo ugu muhiimsan khilaafaad saarka haddii guddida fulintu uu khilaaf yimaado ama xubno laamaha ama xubno ka mid inaanu arrintaa iyada degdeg wax uga qabanno waanaanu ka qabanay hawlo badanna waanu galnay khilaafaad badanna waanu saarnay waxa weeye muddo 7 sano ayaa imika aan guddi la samayn 2016 waa 7 sano iyo dheeraad wala bilood meelahaas marka waxaanu soo jeedinay markii guddidii fulintu ay ka gaabisay in ay guddiga loo samayso oo maalinkan maanta guddidii bedeli lahayd iyaka iyo mustambeedkaba arrintu ay maalinkan maanta ay raagtay ay bixi weyday ay ragaaday go'aanada yeelatay hawsheedii halkii baan anagu markaa ka soo boodna ka qabsanay mas-uuliyaddii dadku u nasaaray reer kulmiyana saaray kaalintayadii qodob 8aad xeer hoosaanka xisbiga ayaa dhigaya waanu soo bandhignay
waxaan idin soo bandhignay laamaha iyo maalinka maanta iyo guddida fulinta oo inteedii badnayd ay nala socdaan waxa aanu soo jeedinay in naloo daayo inaanu samayno maalinkan maanta guddidii cusbayd xisbiga fulin iyo mustabeedba sida uu xeerku dhigayo xeer hoosaadka xisbiga uu dhigayo waana lagu taageeray waana lagu gacan siiyey waxa la yidhi dhaqaajiya mudday nagu rafatay nasiya muddaanu nidhi rabadaan baa naga soo gashay way raagtay waxa weeye waxa aanu maalinkan maanta qaadanay go'aankii waan isku afgaranay aan isla qaadanay maanta weeye aanu shirka idinku qabanay taa weeye inaanu idiin soo jeedinno go'aamadii iyo guddiyadii aanu idiin soo jeedinno oo aan ku sharciyno halkan oo maalinkan maanta ku ansixinno oo ay ku kala howlgalaan wixii maalinkan maanta turxaaneed hadday wax jiraanna guddida la doortay ay cillad saarto oo arrintaa iyada ah ay wax ka qabato aad baan idinku mahadnaqayaa odayaasha xisbiga oday dhaqameedka guddiyada laamaha guddimayaashu wadaan guddida mustabeedka aad iyo aad baan guddida mustabeedka yaan guddoomiye u ahaa for the last 7 years waan la shaqaynayay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa sida sharafta leh sida qiimaha leh sida qadarinta leh sida xushmadda leh ee ay ila shaqaynayeen oo aan wax khilaaf naga dhex dhicin hadalkii waan badiyey waxaan ku soo gabagabeynayaa ragna way iga dambeeyaan dabeedna doorashadii aynu u gelaynaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته آدي آد بماتن يهي إبراهيم عرب جامع قدوميها شير قدومك الشركة العاون ودع يقروح البضن آدي آد بين وما دقنا كلمة قيمها بضنية ترتارن كوين ونسيي قدان حسبك وحن عند دارنا يا كادرين دي حسبك وهالكن وظفرية ورن هذا الكسين كرين وحن مكانك سود ويري ميكروفونك حسين أحمد عيديد قدوميك حجين كشير قدومك وسنا كلمة دي سينورن الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين مركا وجه رئيسة دمانتين رجية دمربا وحنذكر سلام يا سلامة إسلامك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مال قابن أمن قابن هذا الكيدنا قابن وقت جنو يري هاي قردن بين نقطي الحمد لله وحين ما أنت أفردنا إنه سمينه guddiyo cusub haddii alla yidhaahdo board ka tiro hadalkii badankeeda Saleebaan baa gabagabeeyey chairmanka gabagabeeyey Ibrahim baan u jeedaa Saleebaanada ku badan Ibrahim baa gabagabeeyey marka waxa weeye taasina iska kaftan waxaan aad halkan uga salaamayaa oo salaanteedu u gudbinayaa ka faa'iideysanaya madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane موسى بيه عبدي يا حاسس كيسة وحكلون كحسين يا مدحوينا كحجانك مدنا عبد الرحمن سيلعي سقي حاسس كيسة بقى ومركا لو ينادها المان كابته وحان مركا آديات waxa ugu badan halkan doonayaan uga gudbiyo salaan iyo hambaliyo iyo guubaabin waxa weeyaan ciidanka qaranka Somaliland aanu ku seexanay ku soo toosno xuduudkeena ilaaliya waliba especially kuwa jiida jooga sise gooja waxa weeyaan Somaliland ma doonayso inay dadkeeda wax yeesho laakiin cidii ku soo duushay way iska celinaysaa cidna u dhigmaysa meel waxa qulaha kale halkan doonayaan kana faa'iideysna waxa weeyaan wadanka Somaliland waa wadan la wada leeyahay oo dhisan oo hore u maraya oo hore u socda waxaan leeyahay dadkeedu inay ilaashadaan weeyaan waxaan arkay dad la doortay oo la yiri waxa weeyaan waa wakiilo
ما وكيل دون كما هذا أو أنت فراكترسة أو فقوقا أو دين عيوس سودان يدين عكس سودان تونا أنا قرنينين وحنا أركي قوليها الدجانك أو طيالة اللي صار دورتي مركز اللي بدأ يسوي دارتين إياه أنا ما قرنيه وهي هذا الوحول بس هذا كهذا أو قشوا ده ملا أن لجلين مو بناكسنا وإنا وجدان قولوا ذا إنا كم دهين دولته وأنا هين قولوا بارنا كوكيلادو وكم دهين دولته إنا ساوس وسعودان ويان عايدة يو قصك إنا إسكدايان إنا ودن كتليان نبديسه يو وناقيسه يا شرفتيسه أيام مهمة وحويان إنا نلشق إنه دولتين حكومتين ما مدحوينان ما هم ماشي حكومة سمايسنا وما تشوفيون ولا سبدلية عندي دول سنين بدشوا وأنا سوى أحسن أو شرف له ضد كنا سوتشي إذا تاين السمايان مركا وحنا كان كسي يرى نقضية إياه قولوا دقنك كانوا وحنا لها إنا كبحان سياسة دوية وايو كو إما كقصة وايجا قولوا دقنك لما وناكسنين السياسة كم بالمان أما حسبي يشي كذا أنا قران إما كوجاس علي بين رسول الله وحنيري حسبي أنا كمج أنا وأنا لحية كوي دقن كي كلنا وأنا ساس وكلا هذان ودرس كوحي ودنا يو ودن كوحي ودنا يو نبض كشقيان إلهي نبض هاي نسوا عريو نبض بين كل علوني نبض بين كتشوغني نبض داسي ما أنت أنا نبض بين هالكايرة لاسعارود ما يرضون ويسكت ما نسى إلهي دمكي ودت كيني waxaynu haynaa sharaf iyaguna inay isqaboojiyaan baa muhiima waxaan ku soo gabagabeynaya maanta sida aanu sheegnay waxa halkan aynu ku fulinaynaa laba guddi inaynu soo saaro waayo waqtigeedii bay joogtaa maba joogto way dhaaftay laakiin waxa weeyaan waxaanu samaynaynaa inaynu halkaa ku soo gabagabeyno oo labadii guddi ee mustanbeedkii iyo muxuu ahaa fulintii halkan ku samayno anuu muddo badan intii xisbigu samaysnaa mas'uulun baan ka ahaa meelun baan mas'uul ka ahaa ama gudoomiyaan ahaado ama mustanbeedan ahaadee maantana waxaan jecelahay inaan dee dadka inaan dul taagnaato un maahee inaan ku wareejiyo muxuu ahaa dadka loo baahan yahay inay galaan halka iyaga kaalintayada galaan anoon ka baxaynin xisbiga oo xisbigaygii uunahoo kii deen dhiigga u shubay ah haddana sidaasaan jecelahay waxaanan idin leeyahay qof walba sacrifice ka sameysana kad walaalka u sameyso weeyaan hal dadaalana waad mahadsantihiin dhammaantiinba wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu imikana waxaan kusoo dhaweynayaa salabaan aadan faarax xogayaha mustanbeedka oo kelmadiisa isaguna halkan ka odhan doona aad iyo aad baan u salaamayaa shirweynahan shanaad ergooyinka fadhiya saalixyada waxaa la yidhi nin baa loo salaamaayo suldaankaan u salaamaya dhammaan ergadoo dhan marka waxaan ku darayaa waxa soomaalidu ku mahmaahdaa haddii ninkaa afyaqaansani uu hadalka kaaga horeeyo wuu ku aradiya hadduu kaaga dambeeyana wuu ku xilaa hadduu kaaga horeeyo wuu ku aradiyaayo dee wuxuu kaaga tegayba ma jiro hadduu kaaga dambeeyana wuu ku xilaayo waxa la yidhaha warninkii hore muxuu ku hadlay nin baa ina helay markii dambe dee ducaa waalid baan qabaayo ragga aan talada ka qaadanayay waa aragtaan 7 sannadood raggaan la shaqaynayay iyo odayaashii ka horreeyay xasan cali weydiin nagala fadhiyo ayaan talada ka qaadanayay mar haddaan talada ka qaadanayay iyagana hadalka iyagaa leh keliya waxaan u kacay 2 qodob oo yaryar waxaan u mahadnaqayaa dhammaan laamihii iyo guddiyadii laamaha iyo taageerayaashii xisbiga ee muddada aanu xilka u haynay annaga iyo fulintu sida hagar la'aanta aan ula shaqeey aad baan ugu mahadnaqay waxaan ka bartay dhalinyaro haween iyo haldoor kale oo badan guddoomiyayaal laameed oo dhalinyaro ah
oo carruurtayda laaleeg oo haldoora oo aqoontooda iyo contributionkooda iyo hoggaankoodu aanad meel aad ka saluugaysaa ku jirin rooblayaro iyo faaraxiya baa ka mid ah rag dhallinyaraa oo committed ah oo runtii aad iyo aad iyo aad u qiimo badan baan ka bartay waxaan ka bartay odayaal hoggaan leh oo ibraahim carab xasan cali weyd gudoomiye ku-xigeenkii mustambeedka faarax xasan xuseen axmed caydiid aniga axmed baa wehelinayo axmed caliyo dee wax badan baanu ka baran waxna anfacayaanu ka baran iyagana waanu mahadnaqaya ilaahay haydin asturo ilaahay haydin ilaaliyo waxaynu dooranaynaa guddidaa waxaan leeyahay waxay ku beeganteen waqti wanaagsan waxay ku beeganteen waqti madaxweynihii dalka iyo madaxweynihii ka horreeyey oo labaduba xisbiga kulmiye yihiin ay talinayaan oo ay dadkii isku hayaan berigii daweyde 2017 baan 6 gobolba orday oo si xoog loo ordo dabeedna nin xisbigan wadaniyada ay guuli warniyo aad baad u ordaysaa maalintii hore kulmiye axmed siilaaye sidaa uma aad ordayni xaggaa barigana waad reer barigana waad maxaa khaldan laba nin baan maanta sidaa baan ku iri maalintii hore nin quraas maanta laba nin oo isku dardaarmay baan sidaa waxaan doonayaa inay guddidaa fulintu xisbigii sito ninka cabanaya ee maqanba inay iyagu jilbsalaha halka qodoba ugu dambeeyaan ku dardaarmaya waxa weeye inaanay muddo dhaafin muddo dhaafku waa mushkiladda keliya ee noogu badnayd ee xisbiga maaragtay keeni jirtay khilaafaadkiisa labadaas sannadood ee xeerku dhigayo 45 casho horteed guddida qabanqaabada magacaaba si sharaf leh u diyaar garay waxaan kaloo soo jeedin lahaa in waxoogaa qoladayadii mustambeedka ahayd dee xeerku inta badan khilaafaadka iyo arrimihiisa aada ugu warhaya meelo aynu u baahannahay in wax ka beddel iyo kaabis ku samayno inaynu guddi madax bannaan u saaro tusaalaan idin siinaya hanti dhowraha waa xubin madax bannaan haddii uu ka baxo meesha ama risayno ama ti allaba u timaado ama uu iskaba tago qaabka loo soo bedelayaa kuma taalo midda kale hanti dhowruhu hadduu intuu risayno guddiga fulinta gala ka warrabo isagoon xisaab xirkeenin wax ka maanacayaa ma jirto inuu guddiga fulinta galo oo ku biiro isagoo hanti dhowro ahaa oo aan xisaab xirkii samayn ma jiro qodobo yaryaroo muhiima baa jira oo dardaaranka iyaga aanu ku dari doonno insha allahu tacaala aad iyo aad baan ergooyinka u salaamayaa laanta bristol si gaara baan u salaamayaa shirkii horena way noo qabteen tanna si xoog lay uga soo qayb galeen waa mudan tihiin abaalkiinana waanu haynaa wixii khaladee naga dhacay intaa aanu xilka haynayna raalli ka ahaadoo bareero may ahayne meeshun baynala bartay wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi guud ahaan waan salaamayaa ergooyinka xusbiga ka soo qayb galay halkan waxaan si gaara u salaamayaa kaadiriinta xusbiga waxaa halkaa iga soo horjeeda cabdirasaaq ibraahim kooshin oo isaguna dee rogi cadaayaashii xusbiga ka mid ah aad iyo aad baynu ugu mahadnaqanaa dadaalkiisa iyo kartida uu xusbiga geliyey iyo guud ahaan xubnaha kaleba aad baynu ugu mahadnaqanaa dabcan marka xusbiga kulmiye la xasuusto amba la arko dad baa dee markiiba wejiga kusoo qorma oo la arkaa iminka waxaan kusoo dhaweynayaa xasan cali weyd oo runtii dee xusbiga kaalin weyn kaga jira roogeyna soo ciyaaray odaygii dee xusbigana ka mid odayaasha xusbigana ka mid ah dardaarankiisa iyo kelmadiisa aynu dhegaysanaa بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله إلهي بام هدله إله هل كان سوكا كاني إنه نبض قبله أمني أمام بقبنا يا مهدله الحمد لله رب العالمين انت الدبديد هذا الكي ولا دمي وحا إنه تشوقنا
shirkii shanaad ee kulmiye haddaba kulmiye waa kulmiye waxaan u malaynayaa in aad iyo aad looga dheregsan yahay Somaliland oo dhan iyo qurbajoog oo dhan inuu ka dheregsan yahay kulmiye waa kulmiye oo waxa looga fadhiyaa marka uu soo kaco soo ruqaansado isagoo saddex kacleyn imika ku jira laba kacleyntii dhaafay inuu wacdaro inuu dhigaa looga fadhiyaa oo xusbi imika la baranayo ma aha waxaan in yar isu taagayaa dhowr qodob marka ugu horeysa guddida fulinta iyo mustambeedka ee imika la dhaqaajinayo ee hawlahoodii imika halkaa ka qaadanaysa waxaan u soo jeedinayaa inay dadaal aad iyo aad u fara badan oo kii kulmiye ah oo kulmiye intii uu dheeraa xusbiyada dheer inay la yimaadaan dhismaheeda qabanqaabadeeda abaabulkeeda wacyigelinteeda iyo tabaabulshaheedaba sababtoo ah waxaynu xusbi soo ahayn muddo dheer laba madaxweynena ilaahay uu nagu soo guuleeyey imikana kii saddexaad baa loo ruqaansaday ilaahay idankii sida Ibrahim Carab uu sheegayna waynu ku guuleysanaynaa ilaahay idankii marka guddida imika waxaan idiin sheegayaa oo qolada guddida aan farayaa xusbinimadii waynu ka baxnay urur baynu noqonnay bal hadda eega qiimihiisa urur baynu dib ugu noqonnay ururkaasaa la doonayaa in xusbi la soo gaadhsiiyo oo saddexda xusbi ee soo baxaya uu ka mid noqdo oynu ku dadaalla inaynu ka mid noqonno inaan ka bixi fiilka ilaahay idankii ka bixi mayna inaynu lambar 1 ka qaadanno ayaynu u soo kacnay marka kulmiye oo soo ruqaasaday oo soo kacay wax ka yar oo laga sugayaa ma jirto guddida ayay hawl weyn saaran tahay iyo xil weynba saaran tahay waxa kaloo ku dardaarayaa inaad khilaafaadka aad saxdaan oo khilaafaadka yareysaan oo cid walba u dul qaadataan oo laamaha isku wadaan oo rag iyo dumarba aad si u wada kicisaan wax kama soo hadhayso abaabulka iyo wacyigelinta iyo dhaqdhaqaaqa kama soo hadhayso shirarka oo la joogteeyo wada tashiga oo la joogteeyo waxa kaloo ku dardaarayaa inaad guddida mustambeedka ee imika la magacaabayay inaad goor walba guddidii hore mustambeedka aad la tashataan sababtoo waa aragnimo badan ayay sitaan aad la tashataan oo sidaa kaga tegin oo wixii dhimanba aad dhamaystirtaan intaasi kulmiye ayaan maanta farayaa meel kastoo uu joogo cod dheer oo halkaa meel walba laga maqlaayo kulmiye waxaad ku noqotay ururkaasaa la doonayaa inaad xusbi 1ka gala aad ka soo saarto hawl yar maaha waa in xoog iyo xoolaba la duldhigaa weeyi inaynu hogaaminta muddo dheer haysanno sida xusbiyada adduunka lagu sheego qaarkood ayaan ilaahay ka rajaynayaa intaa weeyi waxa kaloon halkan in yar uga faa'iidaysanayaa waa la tartamayaa saddexdii xusbi oo urur ku noqday ayaa waxa la tartamaya 10 kale oo urura oo maanta isku meeqaan yihiin waa 13 urur qolo wadani la yiraahdo ayuun baan niyo ka fajacay arrinka ay had iyo jeer ay ku hadlayaan ama ay jilcinayaan oo oranaya kursigaanu doonaynaa maanta kursigaanu diyaar u nahay maanta kursigaanu jecel nahay oo kursigii aad moodo in hadiyad la isu siinayo ama la isu ladgaayo dee haddaba wadani waxaan u sheegayaa la isubana lidkii ladgaayo hadiyadna la isuga siinayo waa la tartamayaa tartankaa la tartamaya haddaad ku guulaysataan waa idiin haniyeynaynaa waa idinku sacbatumaynaa waa idinkula shaqaynaynaa haddii la idinka guulaysto wadani dee imika hayse sii siinin oo sidii wax meel idiin sii yaalle haddii la idinka guulaysto dee iyadaan muraaradilaacin imika qaybta ku dara in la idinka guulaysan karo sababtoo ah goor kastoo ay arrin ka hadlayaan ama ay naqdiyayaan ama maxda dhaqmeed ha u ahaato
ama haddii aqoonyahan ha u ahaatee sidii wax xusbigan maanta kursigani meel usu yaallo ayuunbaad actionkooda iyo hadalkooda iyo ku talagelkooda u moodaysaa. haddaad waxaysa siiso oo wixii kuu socon waayo dee waxa weeyaan waxay kugu noqotaa mufaajaho. waxaan kula talinayaa inaanay isa siina tartanka ay si wanaagsan u galaan. 13 urur baad la tartamaysaan. haddii nasiibkiina idin siiyo waa laydin haneynayaa, waa laydinku sacbatumayaa. hadduu idin sii waayo mid kala siiyo dee wayna u haneysaan. iminkana inta loo sii socdaa aydaan isa siinin oo way idinku hubaan doontaan idin siina. qoladaana intaasaan kula talinaya waan u nasteexaynayo. waxaan kaga baxayaa kulmiye wuxuu ugu dardar waalaa markii uu mucaaridka ahaa. dee markaa waxbaanu kala goynayna gebiga iyaguba imika waxaan anigu is idhaahdaa waktigan ayaa kuu soo yarjidiyo dee dhalinyaranimo kugu soo yaro celiya. haddii ku royaayeen kulmiyana ku soo celiya, kulmiyana dee maaragtay ku soo celiya sidiisii. haddaba kulmiye oo xusbi u socdo oo urur noqday wixii uu ahaan jiray ayaa laga doonaya. waxaana ku xiran tahay gudaha fulinta iyo gudaha mustambeedka. ilaahay idinku asturo, waa idinku barbar taagannahay. odayaal idiin joogaan xaggaa dambe. haddii bukure ha baqanina, ha lagu socdo. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. waxaan kusoo dhaweynayaa imika axmed cali kaldhi kelmadiisa siduusna inoogu yidhahdo halkan. axmed kusoo dhawow. waxaan filayaa dee meesha odayadaasi iyo waxgaradkaasi ka hadleen hadal badan oo iiga bannaan inaanu jirin, laakiin 2 qodobun baan jeclahay ama 3 qodob inaan ku kabo. xisbiga kulmiye waxaan ka mid ahaa raggii weliba qurbaha raggii ugu horreeyay ee ku biiray anigoo aad u dhalinyaro ah. 2003 baa laamihii ugu horreeyay la aasaasay. xilligaa guddidii la sameeyey allah u naxariistay maxamed yuunis ayaa guddoomiye ka ahaa. allah naxariistay jannaha geeyo. waynu ducaynaynaa. guddidii ku xigtayna maxamed aaraa ka ahaa. kii ka dambeysayna ibraahim baa guddoomiye ka ahaa. xilligaa aynu gelaynay doorashada 2010 oo 7 sano ahayd waxaynu soo qabsannay 3 doorasho. 3 doorasho waxaynu ku saleynaynay xeerka guud ee xisbiga qodobka 49aad wuxuu siinayaa laamaha dibadaha in ay guddiyadooda u madax bannaan yihiin, xeer hoosaadna leeyihiin. xeer hoosaadkaasina jaangooyo hago lagu dhiso qaab dhismeedka xisbiga ee dalka. tiibaynu ku socon jirnay. taasaynu kaga duwaneen xisbiyada kale toos u magacaaba laamaha mas-uuliyiintooda oo ay laga soo magacaabo gudaha. 2011 baan filayaa guddiga qabanqaabada cabdirasaaq oo halkaa fadhiya ka mid ahaa. guddidii lagu doortay waxaa ka mid ahaa xasan cismaan oo guddoomiye ahaa. cabdirasaaq baa ka mid ahaa. cali aadan cawaala ka mid ahaa. akhyaar badan. xariir baa guddoomiye ku-xigeenaha guddoomiyaha xisbiga soo noqday. waxay ahayd 2011. maanta waxaynu joognaa 2023. waa muddo 11 sano ah. 11 sano in xisbigu mar walba muddo dhaafo oo qof quri hayo dimuqraadiyaddii ka soo horjeeda. waxay ka soo horjeedaa hanaankii xisbiga loo aasaasay. waxay ka soo horjeedaa qaabkii aynu u dhisan jirnay guddiyadeena. xilliga 2010 aynu doorashada gelaynay khilaaf baa guddiga fulinta soo kala dhex galay. bristol baa la isugu geeyey. khilaafka halkaasaa lagu xalilo guddi lagu sameeyey. waxaan filayaa xilligaa waktigii doorashadeeduna way joogtay. tartankii madaxweyne axmed siilaanyo uu ku tartamayay madaxweynenimadana way taagneed. guddoomiyihii xilligaa joogayna waa ku yara adkaystay meesha. waxaa la isku afkartay inta West London loo isugu yimi in muddo kordhin la sameeyo doorashada kadibna si aanay dhibaato inoogu iman. ilaa mucaarad baan xilligaa ahayna doorasho la qabto. xilligaa waxaa lagu tashaday
in mustambeed la siiyo xilligaasi ma jirin cid khilaafka loo celiya waa marka lagu soo daray xeerka hoosaadkeena xeerka mustambeedka iyo guddiga mustambeedku si dhibta ay u xalisho 11 sano ugu dambeeyay khilaaf buu xisbigu la dhaqaaqi kari lahaa khilaafkaana waxaa number 1 ka ah doorasho qaban la'aanta waxaa number 1 ka ah in dadka loo diido inay cabiraan ra'yigooda iyo aragtidooda iyo doorashadooda iyo in xeerkii iyo processkii doorashooyinka madaxa la iskaga taago waxaanu ka codsanaynaa oo aanu mar walba ku guwaabinaynaa mas'uuliyiinta la dooranayo golaha laga dooranaya inay xilli doorasheedkii qabtaan 2 sano weeye xilligu maantada aynu joogno 2 sano kadib oo la dooranaya guddi kale si dimuqraadiyaddu inoogu hirgasho si xisbigu dad cusub iyo dhig cusub loo keeno si uu u shaqeeyo waa in doorashadaasi mar walba hirgasha waxaan kale oo aan jeclaan lahaa hoggaanka xisbigu inkastoo xeer hoosaadku inuu ogol yahay inaynu madax bannaannahay haddana inay ku dul joogtayso mas'uuliyiinta inay hirgeliyaan doorashada taasaan hoggaanka xisbigana kula dardaarmi lahaa kana codsan lahaa waxaan intaa raacin lahaa oo ku gebagabeynaya mustambeed baan nahay la xajaala xilliga naga haysa xisbiga mustaqbalkii ayahaygaanu ka aragnaa danta xisbigayni aanu ka aragnay in doorasho in la qabto oo dimuqraadiyad lagu kala baxo inay ku jirto waxaanu jecel lahay in la iskaaga berbertaago guddidaana waxa maanta halkaa lagu doorto xisbigu la shaqeeyo si ay u suurto gasho himilooyinka ujeedooyinka ahdaafta aynu xisbiga ka leenahay wixii dardaaran ahaa iyo wixii talo ahaa iyo wixii soo jeedin ahaa odayada idin dhameeyay guddida cusub waana ku taageersanahay ugu dambeyn waxaan ku soo gunaanadayaa akhyaar badan oo Cabdirasaaq Alfa ka mid yahay oo odayada halkan fadhiya ay ka wada mid yihiin Salebaan Nugaal ka mid yahay Jaamac Muuse ka mid yahay Axmed uu ka mid yahay aadan waxay ahaayeen dadkii dhiigooda iyo dheecaankooda u soo shubay xisbigan inaanay ka daalin halkii ka sii wadaan talada iyo guwaabada la barbar taagnaadaan guddida cusub dadka cusub ee firfircoon ee iminka ku jira ee shaqeynayna ay halkii ka sii wadaan haddaan wax qaladnay waxa la yiri aqoonna Allah hanaga aqoon darana Allah hanagu cadaabin eexna Allah hanaga tigi anaga aqoon ba halkaana marisay la xijaalana marisay xisbi jacayl baan mariyay waxaanu jecel lahay inaan arrinkayagu oo inta ahaa inaad ogaataan aad iyo aad baan idin salaamaya assalaamu calaykum waraxmatullah axmed cali kaldhe oo inala wadaagay dabcan dhanbay ka raran tahay baan u malaynayaa dhow gooraanba dhinac baa laga soo eegayey marka dhinacii haweenweynaha xisbiga kulmiye oo runtii la-aantood aanu xisbigu dhaqaaqi karin ama socon karinba iyo guud ahaanba jamhuuriyadda somalilandba iminka waxaan kusoo dhaweynayaa oon kelmadeeda siinayaa Fawsiya Cismaan Cawaale sida kelmadii ku habooneyd halkan nooga tiraado Fawsiya kusoo dhawow السلام عليكم horta waxaan idinku salaamayaa dhammaan salaanta islaamka salaanka bacdi waxaan aad iyo aad u hambalyeeynaya mustambeedka iyo qaybta ka timaado always ee garabkayga midiga ee kulmiye waaxda weynu ah ee Bristol oo aan la qiimo ahayn laama kale iyo magaalooyinka kala toona oo Bristol ay ka mid tahay oo aan hawada u marinaya waa Bristol waa halka kaliya ee xisbiga kulmiye ka socdo udubka u ah wanaagana u ah taasi waa taasoo watii xisbiga aad iyo aadna waa u mahadsantihiin intii meel dheer ka timi iyo intii meel dhow ka timiba sida quruxda badan ee noogu timaadeen sida quruxda badan ee u doonteen dadka dhiigga iyo naftaba ka raba inuu xisbigu yahay maanta waa muqaddis xisbigeenu sida calanka Somaliland ee tawxiidku ku qoray muqaddiska uu yahay ayuu xisbigan kulmiyana muqaddis u yahay laano waa xisbi uu leeyahay mujaahid
ay sameeyeen mujaahidiin isagana dambeeyeen oo ay aad iyo aad maadaama ay mujaahidiinta dhiigga iyo naftaba u huray wadanka oo maanta toodii aanay noqonin taa maanta taaganna goglay nabadda maanta aynu harsanayna sheegay intii dhimatayna ilaahay naxariistii jannaha ka waraabiyo intii noolina maanta kuwa wili u dadaalaya ay yihiin ayaa xisbigan asaasay marka xisbigan wuxuu inaga mudan yahay xisbiyada kasta ee yimaadaaba waxa uu inaga mudan yahay waa hadda hadsanayo oo Soomaaliland leedahay xisbiga kulmiye taasi waa tii xisbiga waxaan halkan salaan uga marinayaa madaxweynaheena Muuse Biixi Cabdi iyo wasiirada madaxweyne ku-xigeenka iyo dhammaan qaranka Soomaaliland ciidamada qaranka sida ee maanta jiida sare jooga ee maanta dhimashada iyo dhiiga iyo noloshaba u huray in aynu nabadda aynu maanta dhulkan aynu ku joogno iyo maatideeni iyo caruurteeni iyo dumarkeeniba kuwa maanta ay harsanayaan ay hoos joogaan waa ciidankeena qaranka waxaan ilaahay uga baryaynaa caafimaad sareecana iyo cimri tayma iyo guul ay mar walba harsadaan iyagu kuwii guuleysta ee laga guuleysan inaanay noqon marnaba waxa reer Laascaanoodna waa Somaliland ninaan ku rari doonin ku furin baa la yiri nin dans leh oo xoolo yar soo qaatay oo isagu markii hore u jeedo lahaa maanta laftigiisa way la qalaalaatay kor hadduu maantidii qixiyay uu caruurtii qixiyay uu baabiyey uu maanta roob iyo dayac iyo darayaba ay hoos joogaan maanta waxba muu talin tawxiid uu taliyay reer Booremana waa reer qalinka iyo aqoonta ku dambeysay haddii la dhex cararo iyo haddii la dhex socdaba iyagu dad u taliyay leeyihiin dad taladooda siiyay leeyihiin dad maatidooda ilaashaday leeyihiin iyagu waa kuwa laakiin Hargeysa laftigeeda dad googo soo qaadanaya oo calankan dhiig u daatay iyo caruurtan dayaca iyo darxumada ka soo xirootay iyo agoomihii dayoobay iyo 6 bilood baan garanayaa 88kii qaxi baan ku jiray 6 bilood baan dulcad iyo waqooyi u kala socday oo habeenkii roobku nagu daayay oo waraabuuna eriyanayay oo halka geedkan galnana laga hoos galayay oo ilmaha xambaarsan haddii la qabto inta korka laga inay la eegayo la gowracay yani anigu marka aan xusuusto ardaydii dhagaxa tuurtayna waan haa marka aan xusuusto anu qiiro badan bay gasha qarankan meel dheer buu ka soo baxay maantana inay horta dhalinyarada aan waxba ogeyn ee yaacaysay maantana inay arkaan in nacay fara badani uu jiro oo la necab yahay oo lay ogolayn oo calankan tawxiidku ku qorayo anigu aan harsanayo oo ilaahay tala saartay nin ilaahay tala saartayna waxba ma waayo talaan alla saartay anoo Somaliland labada daraf ay noqoto inamada idin maanta shabaabka ha shalay anoo shabaab la ilaahay oo shabaabkii la midka ha dhinteen caawana shabaabkoodii ayaa caawana la laayay oo caawa dhimanaya oo caawa agoomi baa yaala oo caawa geeridii baa taala maxaan geystay waa su'aasha meesha ku jirta marka reer Soomaaliland waxa leeyahay waar oday koofiyad sita oo googo soo qaatay oo saacadiisa dhamaatay oo ubadka iibsanaya oo dhalaanka iibsanaya waxaynu ilaahay u baryeynaa in Allah inaga qabto inuu inaga qabto oo kii qaranka duulimaad ku ah oo maatida iyo caruurta doonaya inuu dib u qaxiyo in ilaaha raxmaanka ah shabaabka uu qaaday isaga mutalqaflo soo diro inaga qabto taasaan ilaahay u dirnay taasi waa taa waayo waxaan u ooyaa oo habeenkiina mar u ooyaa maalintiina mar u ooyaa reer Laascaanood waxa weeye reer Somaliland maanta ayay garanayaan dhibaatadu waxay tahay dadku waayo Laascaanoodna hore uma qixin Booremana hore uma qixin laakiin inta dhexe waa tii la qaxay ninkii qaxa garanaya xanuunku quxu leeyahay iyo dhibaatadu leeyahay marka maanta iyaguna garanayaan qaxu xanuunku leeyahay hadday maanta ilaahay uu soo dhameyn karaa waxba kuma Allah inoo bareena taasi markay soo dhamaato talaaye cid waxba kuma tarto waayo ninka magaaladiisa u dhisan tahay ee Puntland ee u dhisan ee u imanaya isaga gubaya waxba uma tarin isagu caruurtiisii dibadda u saaray
ilaahay se waxaynu ka baryaynaa in colaadii naga soo dhammaato oo gooja caddana nabad ku dambeeyo oo askartu seexato oo nasato oonu annaguna nasanno taasaan ilaahay ka baryaya halkaasaana kaga baxa aad iyo aad ay u mahadsan tahay fawsiya gobobada iyo qiirada hadalka qiirada leh ay nala wadaagtay aad baynu ugu mahadnaqaynaa waxaynu ay fawsiyana xasuusisay aasasayaashii xusbiga kulmiye oo ugu horeeyay mujaahidkii iyo madaxweynihii hore axmed maxamed maxamuud siilaanyo iyo kaadirintii xusbiga ee kale intii dhimatay ilaaha u naxariisto waxaynu halkan hambalyana uga dirnaa madaxweynaha hadda jooga madaxweyne muuse biixi cabdi iyo ku-xigeenkiisa iyo dhammaan ciidamada qaranka jamhuuriyadda somalilan imika waxaan kusoo dhaweynayaa siyaad tukaale reeraash oo ku hadli doona afka laamaha waxaa nala jooga 8 laamood marka isagaas laamihii nooga hadli doona insha allah kusoo dhawo siyaad بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين دمانتين وانا سلام يا وضيد مستنبات خايقنا يعني مصب كيسان سلام يا أدبدو محسنتين راكل مير دمانتو يقنا وان سلام يا وحلد نبأ ملاد دير بلغي مدي عسومة دينا وادغسو والجولة جوابتين أدبدو محسنتين وحربين هذا البضيان مرابو waxaan rabaa wax yar in isdul taaga uun xusbiga maanta halkaynu joogno wixii ka dambeeya insha allahu tacaala kulli waa dariiqood xalay noo soo socda xusbigu wuxuu ku noqday urur marka urur aad ku noqoto ee 12 kale ururna aad la tartamayso kulli challenge ku horjooga waad garanaysaa marka waxaynu u baahannahay guddida cusub ee maanta insha allah halka laga dhawaaqay waxaan u baahannahay aqoonteedii iyo kartideedii iyo muruqeygii dhaqaalaheygii baan u baahnaa weli tartankan oo kale hore inooma soo marin waxa laga yaabaa in laba xusbi oo kale mucaarada aan la tartami jirnay oo siigada ku rogi jirnay laakiin kan maanta wadag yahay waxa loo baahan yahay inaynu gacanta isqabsanno inaynu siyaasad fiican ku dagaalanno aynu meesha keenno oo waxa weeyaan aqoon ku salaysan waxa kale oo maarata halkan si fiican aan uga hambalyeynaya odayada mustambeedka ah oo shaqadoodii iyagu ka soo baxay waayo ninka laanta fulinta joogay haddii uu sharciga isagoo iska baalmaro uu dee dhinacan u rogto waa inaan ninkii qabanaya la helo kulla liica looma baahna in nin qabtaa loo baahan yahay insha allah mustambeedka dambe ima doonana waxaan rajaynaynaa inay sida ay example ka qaataan tusaale ka qaataan sida Ibrahim Carabi iyo groupkiisa ay noqdaan yaanu rajaynaynaa dadaal baan u baahannahay insha Allah taala waqtiga nagu dheereen maayo waad mahadsantihiin laamaha kalena aad baad u mahadsantihiin kuna qolada fulinta ee ima doontana waxaan leeyahay ma sahlana dariiqo insha Allah ninka halka ka soo bixi la doortaa dariiqa ma sahlana yaan la yeelsan insha Allah taala aad baad u mahadsantihiin kursigan de leeyahay kulli annaka leeyahayna haddii uu 13 ka urur ee tartamaya uu ka soo bixi waayo oo la yiraahdo annaka maanta noo dhiiba la yiraahdo de hagbada reer galbeedka iskale galbeedka la siiyo haddii la isku dhiibayo reebooda iskale waa garanaysaa laakiin waxay noo fiican inaynu intaan isku tagno ninka ina wadaya ee xusbi wanaagsan ka soo baxay siyaasadiisu wadanka wax u taraysan wadayo inaynu doorayno fiican hadii la siinay laakiin deemashu kuma jirto aad baad u maasantiin dhamaantiin salaam insha Allah taala ku hadlayay afka laamaha 8 laamood ee nagala jooga laamaha xusbiga kulmiye ee UK weli fariiqama qodno dadkii baan ku dhex jira insha Allah waa inoo soo koobaysan insha Allah si waqtiga aynu uga faa'iideysano imika waxaan ku soo dhaweynayaa kelmadiisa ay nooran doona Muxtaar Xasan Xaashi oo kelmadii ku haboonayd ee madashan uu inoo wada doona ku soo dhaw Muxtaar اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لما مدرسة هل كان سكوت تميد كوضة تميد دبد iyo London ba marka kulli waxa ka yimaadeen qolooyin badan Liverpool sida nimka halka ka arkayo maxaan ku raacdaa Bristol iyo adu kulli laamihii kala oo dhanba halka ka wada yimaadeen maanta waxa sharaf inoo ah
inagoo aanu halkan iskugu nimid xafladii maanta ay ilaahay inagu sugay inaanu halkan kusoo gabagabayno markaa guddi cusub ayaa kolley maanta halkan laga dooran doonaa guddidaa cusubi mustambeedkii iyo waxay iskugu jiraan fulintii kolley hawl adag baa inagu soo socota xisbigan kulmiye dee wuxuu ka yimid somaliland haddaynu dib ugu yaro noqono oonu siyaro xusuusino halgan dheer bay soo martay halgan qaar dheeray soo martay jabhad bay ka timid geedka hoostiisii baanu fadhiisanay waxyaabaha aan iminka adduunyada kale aan weli la gaari karayn waa taa geedkii hoostiisii bay ka timid dowlad baynu noqonnay xisbiyaynu markiiba samaysanay waxaanu noqonnay meel yaroo istaraatiijiga abcad yaroo istaraatiiji ku taala oo maanta ilaahay nabad intaa aynu ku sugnay 31 sannadood iminka nabad baynu ku naaloonayna halkan soomaalidii kale aad arkaysaan waxa ka socda calaa kulli xaal xisbiyadii samaysmay xisbigeenani wuxuu ahaa xisbi intaasba soo halgabayay markaa deetana waxa weeyaan waxaan iminka laba doorashooyin ku guulaysanay haddana ururaa iminka laysu bedelay tanaa iminka adag oo laga baxo iminka halkan aynu dalcad xoogaynu taagannahay oo ururkan aynu noqonnay xisbigii halkii lambarwankii aanu ku noqonno dadaal xoogan aynu samayno oo qolo walba layswada gaadhsiiyo rag iyo dumar weliba xoogga weyne waa dumarka oo aad magaranaysaa u shaqeeya oo ragguna waxaan leeyahay iminka waa meel adag meesha aynu ka qaadno wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه أبو مسيحي مختار حسن حاشي إمكا دنعي هوانك أيام كنا قنيا وحسود وينيا كنا عطسنا يعني كلمة دي هذا صورة كوبتو إن شاء الله هذا عبدي علي هذا كسودو دمانتين مرت شرفتا قبل هذا كتمي لامها لندن مدح القرن كينا لفردها مدح المستنبيتك كديدي فلنت انتي نقلت شوكته waxaan ku salaamayaa salaan aad iyo aad u qiimo badan dhammaantiin rag iyo dumarba caawa sida warka badan ah ku maqlayseen waa habeen aad u qiimo badan qiimaha uu dheeriyahayna waxa weeyaan waxaynu doonaynaa haddaynu reer kulmiye nahay xisbigeenii aynu haysanay ee dhiigga iyo dheecaanka xoog iyo xoolaba aynu gelinay intaynu kor u qaadnay inaynu halkiisii gaarsiino si aanu u leecleecin oo aanu uga dhicin darajadii u lahaa aadna waxaan u salaamayaa oona aad iyo aad ugu mahadnaqayaa guddiga mustambeedka oo tiir u noqotay inaanu xisbigu leecin UK oo sidaa kor ugu hayayo xajinayay aad iyo aad baad mahadsantiin mar labaad in yar haddii aan ku dareynta kulmiye xisbiga kulmiye maalintii lagu dhawaaqay ilaa maanta horta waan dhex jooga kolba inaan ka joogaba insha allahu tacaala sida fikirkaygu yahay ama focuska aan doonayo inaynu gaadhno insha allahu yahay waxaan anigu min qiyaaskaygu yahay kulmiye ama urur ha u noqdo ama xisbi aynu gaarsiinay in sida xisbiyada caalamka uu 100 sannadood inoo shaqeeyo ama conservative aynu ku mataalo ama labor aynu ku mataalo xisbigeenu taasuu maanta u dhigan yahay haddaba maxay nala gudboon sidii aynu halkaa maanta higsigeenu yahay inuu ku gaari lahayn ciyaar laguma helo waa in aynu horta kolka u horeysaba wada jir bay laba gacmood maxaa la yidhi taageeray laba gacmood markuu yeeshaan hadday midigtu kali taagan tahay tahar ma goyseen horta inaynu isku tiirsanayno gacmaha isqabsano kulligeen rag iyo dumar ayaa kowka ah marka labaad inaynu isdhegaysano ayaa labaad ah marka saddexaad maxaa loo baahan yahay yeela iyo waayahay saddexdaa haddii aynu maaragtay isla garanno aynu meel isla dhigno waxa kale waa iska xaabxaab aad iyo aad ayaan mar labaad idin salaamayaa
caawa hadal badan kuma soo talagelin laakiin ilaahay idankiisa waxaan ka baryayaa in guddiga cusub ee la sameynaya iyo guddiga mustambeed guddiga fulinta iyo guddiga mustambeedkuba ay noqdaan kuwa forecastka aynu arkayno maaragtay indhaheena halkaa horizonka aynu arkayno kuwii gaarsiin lahaa waxna qaban lahaa caruurta soo koraysana uga tegi lahaa meel ay tix raacaan barito oo aanay cidla ku dhaceen. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا آدي أدو ما سنتهاي وينوصل كوبتي كلمة قيمة بدلنا وينتري جزاك الله خير. سلامة إسلامك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل واحد لقى يا عاوة هذا الكيرن ولا يري وحن إمك وجهنا إن دور الشدي أنت أورن وحن ربعين إنه مهد اليو دمان لامها UK كارهان لانت بريستول لانت بريستول waxay noqotay laantii marka ay waxaan xasuustaa hadal uu yiri madaxweynihii hore Allah naxariistay Ibrahim Higaal uu yiri markay talo jum noqoto gabadhii baa lagu baxsadaa marka waxaan filayaa Bristol waxay noqotay kulmiye UK markuu isqabso rafto Bristol baa lagu baxsadaa so kulli taa waan idigu mahadnaqayaa waqti waana xisbiyahan aad iyo aad baan reer Bristol يوريك هدف يديهم هالنقيا جزاه الله خير. أنت كبعدي كل أنا واحد كبدي هاكو تيجي هوري فلينتا وحنا نحوجيه وأنا حسوس تاعي إبراهيم عرب يعرن كاس بريغاس وحين جاري هو أذك أي هيد وحنا نربع دمانتين إن ندعينه إبراهيم عرب إلهي إنه جنة كيو وإن آدو ونكسن أو تلقات بدن أو مارتين وفي هذه الشيء إبراهيم سكوتيا إنه هذه الشيء ودعي حاد نقطة أو قفك سقنعيو إن أبان الوحمة واحد بدن إنه إبراهيم لقو تحدي يو ضد أنو قلمين إبراهيم هذا الله أما وحنا هين كشيء وإحنا حسوستا رمضان كهر إنه إبراهيم ندعي كنت كفلنته ويدي هذا الرجال أو رجال إن أرنكاس رمضان يقسمه إن وحفليا عدي أرنكا جبسينا لكل يدي آخر كحساب تميان مركب إبراهيم وحن كله هذا أمارتي هذه بان كوكو مهنغيا إن وحنا تهاي نوينو أبا الله هيو وما أنت واحد تهاي إن وحي إبراهيم ما أنت هالكي نوجو شوقي يعني ما أنت سلبان وكلها كورتي نوفديو أيو إبراهيم نوفديا مركب ما أنت هالكن يسكون من عندنا مدة إبراهيم ما أنت بقت مركب إبراهيم عاديات إلهي مارتي يعني جنة هكويا أدر أنت كبعدي يعني سيد الله الشيعي كنت جن جودة UK وحكت قابن تاي أمبريلا حصرة وحوي نستنبيتك هو مش إلو نغني قور كستبا وحي السعودة وح يسوع صارنا هذه شر أو حسنية وحنا مكم أن كسو قبل دونا كنت جي يعني فلنتي عاو هالكن عند درشة تبدينا وحنا قليل دونا كنت نستنبيتك إن وحن سود ويني قدوميها حسب UK هالكن عاو أرجيكا سوقتي أو قدوميها أحمد عبد الله محمود أحمد سلولا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والله من السلام يا ارجوي كنا شرفت بدن إن شاء الله تعالى مهمتي أي نقلنا تورشدي جدد فلنته أيها الرئيسة وحكوا حيث تي جدد مستبدك ولا جاي أبا حبلين مغنتها هاي هرتا وحوي حبتها مغن قاب كأنو قادني وقاب أرضا ديان مركا وحوي والحبل كترتا oo arjigeedii yaallo oo doorashadii caawd iyo taallo ayaa laga yaabaa inay maqan tahay laakiin se waa la dooranayaa waana gudda fulinta ayaana maalinkan maanta dhamaystirka
مالك ما تقول شيء أحد أحمد عبد الله محمود وقدومي كحدين كي هراء قد الفلنتا حسب الكلمية أرشبو وابرقني أرشي أيو سوقرتي isaga oo kaliya ayaana arjiga aan mahayna sidaa darteed waxaan ka codsanayaa kongareska ergooyinka xusbiga oo laamaha iyo kaadirkii ah in mar haddii aan lala soo dooran oo kaliya ku yahay uu yahay ana bows oo sidaa ku ansixisan gacantaag aan ku ansixisaan gacantaag overwhelming weeye waa 100% ciddii dareemay jirtaa okay cid ka aamusani ma jirto ciddii dareemay jirto halkaasa boqolkiiba boqol weeye sidaa darteed axmed cabdilaahi maxamuud waxaa lagu doortay oo maanta oo bishu 7 tahay bishii shanaad 2023 gudoomiyaha guddida fulinta ee xusbiga kulmiye UK muddo 2 sano dardaalkiina waad ogey hanigu kordhinina markaad muddada dhamaysto qabo doorasho okay that's way dhamaatay gudoomiye xigeenka koobaad maxamed cabdi maxamuud BBC oo maanta aan halkan joogin laakiin seeneen gudoomiye ku-xigeenka koobaad maxamed cabdi maxamuud محمد عبد محمد ورا محمود محمد عبد محمد او محمد بي بي سي كما غادر ورير برستلا عاد بيقول قلمان رير برستلا waxa way ka sila waxa yaanu hayna arshii gudoomiye ku-xigeenka kaliya sidaa darteed gacanta ha loo taago oo hal sharciyo ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله 100% عندنا كمان مساعدين مديدين سادرتيد ساسو كوان صحي الى هوشة هاوفضيو waxaan yeelin doonaa gudoomiye xigeenka labaad Dr. Abdisalaan Awaale oo ah reer Birmingham aw isaguna lama joogo laakiin se isagana gudoomiye ku-xigeenka labaad oo ah Abdisalaan Awaale ayuunba kaalinta soo codsaday ma hadal baa ka taagan okay sidaa mar hadday tahay waxa loo maalinka maanta gacanta ha loo taago oo hal ansixiyo ilaahay hawsha u fududeeyo insha Allah taala xogayaha guud ee xusbiga kulmiye ee UK oo horena u ahaa xogayaha guud ahaan jiray guddidii hore ee aan soo oo maalinkan maanta haddaan gudoomiye qabanqaabada beriga aan soo magacawnay muddana intaa 7 sano shaqaynayay si fiican u shaqeeyay oo soo halgamay oo xusbiga maalinkan maanta kaalintii uu ku bilaabay ilaa caawa ku socda oo aan ka baydhin oo dhaartii fuliyay ilaah baan la hortagaya sidaa darteed arshi kale ma hayne hal ansixiyo ساس وانس حكوية هاي إلى هوش حكوفة كنت بقعد ما عن كوي يرني وحوي إن يتايتلك لعق حياها هذا عبد علي
gudoomiyaha garabka haweenka Fuusiya Cusmaan Hawaale. gudoomiye ku-xigeenka garabka haweenka Fuusiya Caydiid. gudoomiyaha abaabulka iyo wacyigelinta Cabdirashiid. gudoomiyaha garabka haweenka Zainab Saamiya Xajiyaw. gudoomiyaha garabka dhalinyarada gudoomiyaha garabka dhalinyarada Saamiya Xaajigeyd. Saamiya Sado. يا واحد من يا أو وين برختها في الدنيا ما عادي بقى محمد برة يا مقعيس أو يرني صح كنت جا أنت علي فارحي برخط وين علي فارحي برخط أفينك كدنيا حريريها يا علي فارح يوسف حري أفينك كل مية يوكي ويزي علي يا برخط يا أوكي برخد حسن دقيقة حريريها الدحيرة لا حريريها لا ما هيك أول واحد يريد يدفع الكلام كتونيها لا مها لندن شعيب داهر شعيب أحمد داهر يا هاري بالكا حسابيها جود كلمية يوكي أول روبله أول علمي روبله قدوميها قرب كهوينك فيسا هلا فيسا هلال قولي مغنت جامع أحمد حسن جامع أحمد حسن بسم الله الرحمن it's nearly finished. Yeah. مستبعد كوديك عن وحدنا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. again. إرجع شرفت له. وهو أنتي أنا أنصحني قعدت وتاجني
waynu ansixinay xubnaha kale iyo taytaladooda sida loo kala sheegay araajidooda araaji labaad midna kama hayno xilalkaas iyo kaunbay ku eg tahay sidaa darteed guddidii fulintu waa dhan tahay inta aynaan gaargaar u ansixin hal la ansixiyo oo gacantaag ha lagu ansixiyo hal mar inta kale oo dhan si sharaf la weeye waa dhan tahay 100% sidaasay ansax ku tahay ilaahay hawsha ha idiin fududeeyo biidni illaah waa idin ducaynaynaa waa idin hambalyeynaa waa idinkaa waxaan ku soo dhaweynayaa oo laba kelmadood odhanaya oo maalinka maanta dee inuu inoo ballan qaaday iyo dee iyo inuu inoo mahadnaqay iyo guddoomiyaha cusub aynu doorannay ayaan ku wareejinayaa mikrofoonka. بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبه نستعين على أمور الدنيا والدين إلهي با مهدله وحن عادي عاد وقوم هنغيا أولا مرت شرفتا قيمها يقايا له كتبي قبل يوكي مقالة لندن odayaasha mustambeedka ee runtii xusbiga kulmiye oo ah jiridda iyo dhidibada uu ku taagan yahay marxalado badan kala soo dagaalamay marxalado badan kala soo dabaashay halka aynu maanta joogno keenay iyagoo aan lacag ku qaadan iyagoo adduun ku qaadan iyagoo runtii cimrigoodii waqtigoodiiba geliyey oo aan ka xusi karo Ibrahim Carab guddoomiyaha mustambeedka ee xusbiga kulmiye ee caawana doorashada inoo hanaaninayay Xuseen Axmed Caydiid oo ah runtii oday mudan oo isaguna sharaf iyo karaamo xusbiga ugu soo shaqeeyay Salabaan Aadan xogayaha mustambeedka Axmed Cali Ducaale iyo guddoomiye ku-xigeenka mustambeedka Maxamed Cabdiraxmaan raggaas oo dhan oo ah raggii mustambeedka ahaa ee ka soo shaqeynayay intii aanu xilka haynay oo runtii marxalado badan xusbiga kala soo dabaashay aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa waxaa ilaahay mahadiya inaynu caawa dooranno guddi cusub oo aan filayo kulmiye inay ku shubi doonto dhiig cusub oo runtii ay isu diyaarin doonto doorashooyinka soo socda oo xusbigeenni mar labaad inuu xusbinimada hanto oo ku soo noqdo runtii aan filayo guddidii kaalinta weyn ka qaadan lahayd inay guddida noqon doonto waxaan ku kalsoonahay oo aan aad ugu kalsoonahay xubnaha la doortay waxaan kaloo ku kalsoonahay taageerayaasha xusbiga kulmiye odayaasha rugcadaaga iyo reer kulmiye oo dhan oo marka siiliga lagu dhuftay doorasho noqoto guusha qaata ninkii hadlayaabaa iska hadlee kulmiye dhowr iyo 10 sannadood buu imika hogaaminayay Somaliland waxaan rajaynaynaa marka saddexaadna inaynu ku guuleysano insha Allah bismillah kulmiye waxa abuuray oo dhisay mujaahid Axmed Maxamed Maxamuud Silaayo iyo mujaahidiintii la shaqeynaysay oo ah kuwii dalka u soo halgamay waa xusbi ka tilmaaman xusbiyada Soomaaliland oo dhan waa xusbi taariikhiya waa xusbi halgankii Soomaaliland uu ka muuqdo taasi way baa dadka Soomaaliland ay laba jeer u siiyeen codka bilaash looma siin xuquuq weyn ugu leeyahay imikana waxaan rajaynayaa madaxweynaha jooga ka bedeli doona inuu noqon doono madaxweyne kulmiyaha waxaan ilaahay dalkeennii uga baryayaa gobolka Laascaanood oo dadkeenniya oo dagaal ka jiraan in ilaahay dagaalada inaga qaboojiyo waayeelka iyo waxgaradka iyo odayaasha runtii garaadada ee reer Somalilandna runtii nabadda ilaahay dhadhankeedii iyo macaankeedii ku soo celiyo maanta iyo maalintii dagaalku dhacay waa runtii waa laba arrin oo runtii laba meelood oo kala duwan bay maanta taagan tahay Laascaanood maalintii ay nabad ahayd iyo maanta isku mid maaha reer Somaliland haddaynu nahay inagu waynu garanaynaa qaxa iyo dhibaatadu leeyahay war ilaahay waxaan ka baryaa shirku inuu ilaahay uga bariyo Laascaanood inuu nabadii ku soo celiyo waxaan rajaynayaa deyntaas ay aniga iga dhan tahay waxaan ku hogaamin doonaa guddidan cadaalad dhexdhexaadnimo isku wad odaynimo
anigoo runtii experience fara badan oo aan ku soo shaqeeyeen haysta xubnaha ila shaqeynaya aan ka bariyay inaynu runtii kaalinta maanta halka ay lagu doortay labada sanadood ee dambe soo socda inaynu noqono guddi si sharaf loo wareejisa oo guddida qabanqaabada qabato labada sanadood aan ku dhaafin shirkana waxaan ka rajeynayaa inay nagu duceeyaan wabillahi tawfiiq بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمك وحين جوجنا جبدي وحين دورنا إن مرشعي مستنبات كحسبك hawshaasoo aanu muddo 7 sannadood soo haynay sidaan sheegay odayaashuna ay nagu hogaaminayeen ayaynu guddi cusub dooranaynaa aad iyo aad baan ugu mahadnaqayaa odayaashii aan wax badan ka bartay ee guddida mustambeedka ka mid ahaa ibraahim carab jaamac iyo xuseen axmed caydiid ee nagala joogaan aad iyo aad waxaan markaa yeedhinayaa magacyada cusub waxaanu reebnay hal oday oo aanu isnidhi continuity-ga ha sii wado ibraahim carab jaamac guddida mustambeedku had iyo jeer iyaga ayaa doorta structure-kooda way ka duwan yihiin guddida fulinta iyaga ayaa marka la wada ansixiyo isla baxa oo marka waxba islama diidaane saddexda executive-ka iyaga ayaa had iyo jeer doonta ibraahim carab jaamac jaamac cali muuse jaamac sooka أحمد علمي برة ونرير برمجهاما أو حسبيهنا أو أواني نلتشوجن محمد عثمان مختار حسن حاشي حسين محمد حسن يا عبدي كوليد عبدي ها عبدي كودال ها سوري هذا ما أخلت ها ما يما هادين تضبطي حبنوت سيدا ويه وحيدين كم مكان أحمد علمي أو شوغا بيمجهام وصو عذر دارتي وحن شعالها هاي إنه كلمة الدعاء ويراهدو حسن علوي وجدداً مستنبات كا والله ترتارمه حسين أحمد عيديد وهل كان كالين تاني هوري أينو الصلاة وضياشن عصب حسنها الله ترتارمه سودان كنا هاينو صحيرو إن شاء الله حقين استعجاد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إمكا وحنو أنصحنا قدقي مستبد كان مكان كان تاجن عصبة قدقي إمكا إبراهيم بانا جهري ما شاء الله قدومي إبراهيم بانا جهري مركا اللهنا ما هم حاجة معناه من المسيح حيث السنة وحويا تذكر عصب ديك عصب إلهي لمكي مستنباتكي خلافاتك iyo wixii xisbiga soo dhex maraba dhamaystira wanaag ku dhamaystira ayaan ugu ducaynaynaa insha allahu tacaala waxaan leenahay waa wada mahadsantihiin dhammaantiinba dadkii nala soo shaqaynayay intaasoo dhan naftooda u huray ama maxaahayd mar walba la garab taagnaa waan u mahadnaqaynaa markaa wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu xasan baan ku wareejinayaa markaa بسم الله الرحمن الرحيم وحلا يدي نيوين وحي عنانا وصحي وحي يراهدانا ودردارن كل يمكا وكاسو وحلا يقو قرأينا دردار مخ إن شاء الله ونندعينا يا إلهي إنو
guddidaa cusub ee la magacaabay ilaahay inuu ku ilaaliyo ilaahay ku xafido ilaahay u fududeeyo ilaahay u hawl yareeyo لأنه هو جدد الخلافات كوحي حسب يوكي خلاف كي ما دون يجا ومرجعي ولا وصل نقول إبراهيم عربنا نسيبنا يقول كعلي أنت كلنا واحد على ستين ديق عصب أي سوب الدشو هذه دول مهتسيهين حسب يقول هل هو قاعد حسب يعني إنه ما أنت أورر كل نقضي أورر كاو نقضينا وكل سدحيتهم أورر أو لم يذل ترتميه لأن دوني إنه وانك صوغلو هاوشاس ما يرى واتان هروش ددكي هروسو شقيني لا تشدا إذن كبرى تلدا iyo tawaabulshaha iyo abaabulka iyo wacyigelinta kordhiya annaguna duco iyo wixii kale nagala soo darsaba waan idin barbar taaganahay waa kulmiye oo soo saddex kacaleeyay وعذرا ayuu dhigi doonaa wala iska wada garanaya kol haduu kulmiye soo qandafo waa ruug cadaagi soo rogaal celi weeyii wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh كلمة بالورد ناس واي كلمة بالورد أنا بسم الله ها كلمة بالورد بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وحنتكو سلام يا دمانتين سلامتا إسلامك دمان مرتي شرفتا قيمها يا شرفت الله سيدا قروح بدن وقت سوق قيب قلي اسمها حسبك كلمية أما هنقطة جد فلانات أما مستبيض ما هنقطة آديات بدل ما ستي مركوري وحن ما هاد قارو علينا يا أضياش مستنبيتك مدة دير سو شقية آد بنوك ما هاد علينا كل أنو ما بدلي كرنو ما نبوا وحين كرنو أضياش يدي هوري لكن أنا وحنا هاي يجعل وحكبران دونا وحنا نسكت داي دونا إن كستو إلى خلاف بانو كيني دونين إلى وحي ما أنت لنوجا بعضه مركن لنوجا بعضه إلى نبوحنه لكن هاوش وحنا جعلنا هاي جد جفولين توحي تلا يو آراء يو وحي تلا نوجا بعضه إلى نكعاونه أنا رأي بيستلبان هاي هالكاسين دجان هاي وحي تلا يجا بعضه مر والبا آديات بنوسو دوين دونا وحن يقول ما هي علني دمان أصحاب كذا النعيدة تاجن إن الله وضع دورتي إن هاوش إلى هاي نافذ يو دمان تيا نوسو دعية وأنا ما تدهين سلق روح بدن شرفت له ملقاها له هذا السواق بكشين آد بود ما سنتين سونا دوادا رجال عندنا واحد له مر لبعض يوم مر صدحات آد بود ما سنتين سلق روح بدن نوصل لويسين thank you very much thank you